islaantan iyo odageedii oo yaaban daal si cunug u raadinayeen ku daaleen ayaa message waxaa usoo dhacay eedada ila wiilka ma aysan dhalin aabiis la qabe markuu messageka usoo dhacay messageka waa saaxiibadeed waxaa kusoo qortay ee tiri cunugiinii wuxuu ku dheelayaa balakoonkeyga ugu jeedaa qabriyada waa qabuuraha hortoodii ayuu ku dheelayaa cunugiina aadam ahay kaalay soo doonta meeshii eedadii ay ka hadli lahayd wax ka sheegi lahayd indhihii taagtay afkay taagtay waa yaabantahay waana naxsan tahayba maxaa aabihii waa ka yaabay wala hadlay weyse taleefonkii ku orday taleefonkii qabtay xusi waxay ka yaabtay ee afka indhaha la taagtay bal fiiri hadduu fiirshay qabuuraha hortiisa wiilkiin ku cayaaraa aadam kasoo doonta ord isku taabtay qabuurihii u tagay cunugiisa male aadam suu qiilina meel maraay marka dambeeto wuxuu arkay aadamkii ujeediyaa mana qaban karo aadamkii ujeediyaa ma u dhawaan karo wayaabay markuu isiraado qabo miraq oo kale adiga soo cunuga u raadinay oo marba qabri ugu ordaay marba meelba ugu ordaay ayaa cunugii sidii ku waayay sidii cunugii waaba ku waayay mabaleebo bar eri meeloo dhigay malahaay 3 maalin oo maqnay waa maalinta afraad marka dambeete ayaa meel wax ka guuxa intuu odaga dhageystay wuxuu siri barbartaas aad barti intuu aaday wuxuu siri qabriyada ay qabaan dadkan carabta waa qabriyo la furi karo qaarkood la xiri karo sida qabriyada kale qam la isku siinayo ma ahan meeshii inta furay qabrigan ilaa waa qabri alle ah qofna ma magac ku qornabo wuxuu ku arkay cunugiisa oo meed subhanallah cunugay oo meed bal qisadan bilowgeed la dhamaatay aan dhageysanay nakaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سو نقشد وعن وعني مركله ما انت قصو waxaa idin wada subxaan allah ilaa qofka ruuxaantiis noo socotaa ama qali jiray waa ruuxaan qisada waxay ku socotaa cunug yar oo miskiin ah oo hooyadiis maanta dhashaba u raacatay ee aabiis guursaday xaas kale xaaskaas u guursaday ayaa hooyo u noqotay oo cunugii barbaarinaysay sababtoo ay ugu noqoteen waxay tahay ee qalbiga xataa ugu furtay cunugii maadaama uu dhakhtarka yiri waxba ma dhalaysid islaantan marka maantaas darteed cunugeedii ka dhigatay cunuga macal asaf cunug waa cunug iska xanuunsan ee ilmaha baahida gaarka qaba saa u taqaanin autism oo qaba cunugiisa u haysay ee u dhaqaaleysnaysay iskaga haysteen reerka dhanba ilmaba ma haystaan halka cunugooda fiirsanayeen xataa reerka ninka dhalay cunugaas cunug ugu horeeya loo dhala ahaaye cunug ad waa la koolkooliyaa waxay iska degayiin tuulayar sidii loo koolkoolinayo cunugii loo koolkoolinayo 8 sano soo gaaray subxaan allah islaantii maalin dambe isbitaalka tagtay waxay tiri aniga muddo ma aanan arkin caadi uma dhicin waxaa la yidhi uura leedahay dhaqaatiirtan qaarkood iyagoo wax hubsan isleeyihiin uura leedahay soo yiri farxad darteed meel iska weysay yaa ay guriga inta tibno sheegtay wuxuu yiri wax ka fiican ma leh aqawar fiican ay sheegtay sariirtaada ku eko cunugiya soo yiri marka cunugii ee shalay hooyada u ahayd say u ahayd mu ahaa doontaa waay mu ahaan cunugii waxay ku bilowday inay disho inay bahdisho inay baahi ku disho waana ilmo ilmaha baahida gaarka qaba masaakiin adiga si sarafaadkaas ugu jiro oo cunuga u rafaadinaysa maalin maalmaha ka mid ah cunuga dhan baa la waayay cunuga alkaa laga raadiyaa dhulkaa laga raadiyaa male 3 maalin waa la raadinayaa le cunugaa qaatay male ee sheegay male cunuga waxay qaatay waa soo bixi doonaa sheekada soo socoto waxaa yimid 3 maalin maalinta afaraad ayagoo daalan ee kuraas halkan ku fadhiyaan ayaa message u soo dhacay eedadi oo aabihii qabay cunugii messagekaas oo ku qoran saaxiibadeeda u soo dirtay waxay leedahay cunugiina aadam qabuuraha hortiisa oo ku cayaarayay kaalay soo doonta afkay taagtay indhihii taagtay way naxday adoo waa ka qaad taleefonka wala hadlay yaa way sheegayso war maxaa kugu dhacay male taleefonka ka dafay wuu fiiri mase
cunugiina kaaleyso doonta qabuuraha hortiisa ku dheela aadam adoo orada isku taabtay ilaa cunugaa ka maqan cunugii markuu meesha tagay cunugii u qayli aadam male marka dambe aadamkii waa kanaa waxa qabanaa iska dhigaa ma qaban karo wuu usoo dhawaanaa ma qaban karo waa yaabini adooga iska oynaayay baayaysanayo hogaayo isagoo raba iska soo baxo si uu oynaayay ayuu wuxuu maqlaa guux qaylo marka yariisu dibi u noqonaa qabuuraha oonan magac ku qornayn ilaa qabuuraha magac ku qornayn dad ma degana qabuuraha magac ku qornayn yani dadaa ku duugan qabuurahan yani dad laguma soo duugan subxaan allah qabuurkan oo laga dhex qaylinayo qaylis oo maqlaayo waxa waaye qof ku qornaba yani qof ku duugan asagoo yaaban oo xusir qabuurkan fur haddoo furi mas'uul cunugiisi oo meed oo dharkiisa ugu jiro aa ku dhex jiro subxaan allah yaa dili waa cunugan marka isku hooyay wuu soo qaaday maxay ahaatoo le tuuladii oo dhan waa loo kacay xabadaa kor loo tuuray waa loo ooyey cunugii allah yaraxma raaxime cunugii way karfineen way dhaqeen waa lagu dukaday waa la duway adoogii asagoo sida ku yaabay lee nimcati rabbi waa alxamdulilah cunugayga shal ilaahay isii maantan ilaahay iga qaatay alxamdulilah ayaa habeenkii markuu seexday eedadii waaye waxay maqashaa musqusha oo biyo ka socdo way soo kacday musqusha biyihii waxay isleedahay biyihii bal musqusha biyihii ka daadanay soo xir ilan tubada biyo ka socotay albaabkaa kaa furaya albaabka musqusha ma furmayso way cabsatay way soo noqotay way ugu timid odageeda waxay tiri bal kac musqushaan biyihiis tubadayaa furan haddaan arabnaa soo xiran waa albaabka waxay ka furmaya wuu yimid albaabka waa furan yahay biyina ma socdo asi maxaa kaa qaldanaya meesha biyina ma socdo albaabkuna furan yahay way yaabantahay muddo badan ayay aragtay markay seexata waxay arkaysaa cunugii subxaan allah oo dhintay adiga way soo qaylisaa adiga say rafaadkaas ahay maalin dambe wuxuu yiri tacsiida maanta 3 waaye dada isku imaanayo gurigaaga qolkaaga iska saarno qof xaamilaa tahay meeshaa iska joog hayay tiri yuu joogay musqusha sideeda hadan biyo ka socdo musqusha soo aad albaabkii xoogay ku furtay markay saas u gashay nalkee lagu damiyay zam ayadoo yaaban oo qaylinayso waxa ugu soo war dambeysay iyadoo qaylinayso kadib waxay aragtay iyadoo sariirta saaran oo odageeda ag fadhiyo oo leey maxaa kugu dhacay musqusha ku dhex suuxday oo ku soo qaaday qayladaada xataa dadka yimid aku maqlay say xujiraan ma ooyay tiri waxa ma sheegus ayadoo yaaban sida ku yaaban mar walba waxaad daba taagan ee odaygan u sheegi lahaa waxay isleedahay odaygan saa u sheegto waa waalto isku leeyahay iska daa ayaa marka dambe saaxiibadeed la tashatay waxay tiri maxaan sameeyaa waxaanan arkaa mar walba cunugii ay hortaagan cunugii ay imaanayaan cunugii ay marjinayaan cunugii ay daba taagan cunugii si walba mar way eejiyaa mar biyo igu riixriixaa mar tubo furan mar warba waxay tiri adiga murcib waayaan yani waxaan fiiri kara maa waxay tiri sheeqa jiro sheeqaasayta u tag sheeqaya aadi sheeqi markay warka u sheegtay wuxuu soo siiyey xijaab wuxuu dhahay xijaabkan qabriga cunuga ku duugan yahay agtiisa kusoo duug yani soo mar dambeetay cunugaa ma arkaysa habeenan kusoo duugay maalin ma ah habeensiay ku tegay waa marka way baxday habeenkii ayadoon qof u sheegin xijaabkii qaaday meeshii tagtay soo duuga istiri mase markay qabriga ag tagtay ee godka qoday ku duug isdhiis lugtaa wax dhabka yareen qabrigina cunugin waa lagu sii jiidanayaaba lugtana gadaal qofaa ka hayso horena qofaa usii jiidanayso waa qaylis markay qaylisay qofka lugta ka haya soo jiiday banaanku keen markuu keen waa odaygeed bismillaahi raxmaani raxiim waa dhima gaari markaasuu wuxuu yiri waxaan kuu sheegaa waan ku weydiinaa yiri maxaa qabriga waqtigan ku keenay adiga maxaa qabriga wiilkeyga waqtigan maxaa ku keenay ma dhihi karto xijaabada ma dhihi karto saanoo ahay alaa ay taxaaluu yiri aniga maanta uu yiri salaad subax markaan dukaday ee cunugeyga intuu qabriga soo hor fadhiisto yiri aan quraan isaga aqrinayo ayaa sheekh wadaad ah yimid wuxuuna yiri cunugaaga qofkii dilay caawa ayuu imaanaa ilaan qofkii dilay adoo ahaa subxaan allah way naxday wuxuu yiri qofkii dilay adoo ahaa moo runta sheegu yiri haddaadan runta sheeginu yiri
wixii jira qofka dilaanoo ahaa cunugaa xanuunsan aniga awal waxaa isaga sabarsanaay haddii layidhi ma dhashaa tahay waxba ma dhalaysa subxaan allah waxaas lahaa asi cunug ka dhigo laakiin maantii dhakhtarkii soo yiri uuraa leedahay waxaa is yidhi maxuuba cunugayga yani wejigaan xunka ah qofkan xanuunsanba muxuu walaal u noqonaa bal meelay ka fikirta fiirshay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim shaydaan sanaa meelay ka fikirtay oo ma cunugayga masaas darteeda u dish waxaa u dish ma inaan dilo aniga uma laakiin waa cadaabayay cadaabtan cadaabay silciskan silcinay oo ku dhintay gacanteeda markuu dhintay waxaan sameeyay inta ka suugay ku tahay ayaan walaalkay u wacay waa walaalkeed jariimada walaalkeeda la qaybsaday dilkan walaalkeeda la qaybsaday laano qaaday qariyo isku mid ah walaalkeed markuu yimid wuxuu tiri midkan maxaan ku sameynaynaa wuxuu yiri qabriyo faadi ah jirto meesha qabuura aan ku soo ridaynaa habeen madow aan soo qaadnay tiri meesha faadiga ahay ayaan ku ridnay oo cunuga aan raadinayn dhinacaan nagala raadinaysa adiga walaalkaan ila raadinayseen oo cunugayga inta disheen baa meeshaas geliseenba waaba ogtihiinba idhageysi oo yiri uurka aad sheegayso dhah dhakhtarka kuu soo sheegna uur leedahay anoo inta isoo wuxuu yiri qaladaa dhacay xaaskaaga uur ma lahan hawo ayaa makaankeeda ku jiro hawaa ku jirto hawadaas in laga saaray u baahan tahay ee uur ay leedahay ma jirto qaladaa dhacay naga raali ahaada anna waxaa islahaa oo yiri qalbiga ha ka dilin maadaama ay hooyo noqonin qalbiga ha ka xanuunjin iska daa anna wuxuu yiri taasan qalbigaaga inay dhaawacanto aan ku ilaalinaya adna cunuga maskiinka ahay ee labadanaba ilaashanayna anta qabatay adishay la dhimay god kale intuu meesha ku faaga qabri kaloo faadi ah inta geliyo oo ku dhex xiray meeshaada ku jiro ku dhimo adoo nool ku dhex dhimo subxaan allah waa adoo nool ku dhimaya adoo nool ku dhimo yiri yaa kaa yeelaya say u qaylinayso qabriga habeen madow ugu soo tegay yaa ku ridayna markeeda ayadan yaa geeyey wax geeyaa iska rabaa qabriga iyadoo ku jirto aa ku dambaysaa layso ma ku dhimatay ma ku nooshahay yaa sheegi kare maba la ogaba sababtoo ninka qisadaas ka sheekeynaya wuxuu yiri habeenkaas aan qabriga ugu soo tegay kadibna markaan guriga imadoo yiri buugga aan qoray dadkan xasuus qoray qortaan buugga aan qoro yiri ilaa maalin walba qori jiro ku dhamaystiro yiri alxamdulilah ajasheedaa timidoo dheh wax salaamo leh marka yaa sheegaya wixii kulida naagtan dilay ninkan waaba dhintay naagtan wixii dilay yaa sheegaya buuggiisa le familkiisa aqriyeen sheekadiisa saasay banaan ku timid mabal ogaalehen inkastoo ay ogaayeen laakiin naagtan waxay samaysay labadooda la ogaayeen iyo rabbiga iyo warqadaas oo qoray buuggaas oo qoray qof kaloo ogaa karta ma jirto subxaan allah maanta qisadan intaasay ku egtaa insha allah qisadan qisa lamid waxaa idinka baryayaa inaad like noo dhahdaan subscribe noo dhahdaan share noo dhahdaan comediga noogu dartaan insha allah qisadan qisooyin walba saan insha allah niigu soo gudbiyo kambalaalka furta saa qiso walba heshaan khayr badan idin dhaafaa السلام عليكم.